warwadna habowday dan midigta kula helo hilbahaaga waan karin. waqtiyadii u dambeeyay waxaa aad u soo xoogeysanayay xiriirka ka dhaxeeya wadamada Eritrea iyo Soomaaliya. dhawaan waxaa wadankaasi socdaal ku tagay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxyaabihii ay ka wada hadleen waxaa kamid ahaa in wadanka Eritrea ay Soomaaliya ka caawiso hanaankan dimuqraadiyadda. haddaba Titore ma la dhihi karaa Eritrea waa wadan ku habboon inay Soomaaliya ka caawiso arrimahan? waa wax la yaab leh oo ka yaabinaya dadka la socda ama ka warqaba waxa ka socda Eritrea gudaheeda. Eritrea ayada oo uu diiday ninka jooga meesha kaliya taliyaha ah in cilmi baaris laga sameeyo wadanka oo dadka mutacalimiinta ay soo galaan iskoolarada daraasaysa ayaa haddana taas ay ka maanacin oo ay dibadda ka qoraan oo sanad walba bogaaga laga soo saaraa wadanka sida uu u shaqeynayo iyo meesha uu marayo siyaasadiisa iyo dhaqaalihiisa iyo noloshiisa. waxa yaab ah inay ka soo cayaaceen wadanka in badan oo kamid ah ajnabigii jaamacadda Asmara wax ka dhigay halkan ay joogaan ayagoo soo kala orday. waxay ka soo yaaceen waxay tahay repressionka meesha ka jiro inaan dadkii aysan xor u ahayn fikirkooda cabiri karin cilbaaris sax la sameyn karin wadanku iska noqday wadan loo wada nacamleynayo SSF warq. wadankan xukunkiisu ku daahay muddo 27 sano ah ayuu Eritrea fadhiyaa ilaa 93. in Eritrea ayaa Soomaaliya 10 ka baranaysa oo doorasho si loo dhigay ka baranaysa macnaheedu waxa waa waxay ka baranayso doorasho ma aha, waxay ka baranayso dimuqraadiyad ma aha, waxay ka baranayso waa diktatoriyad, waxay ka baranayso waa gumaad, waxay ka baranayso waa dadkoo la laayo, waxay ka baranayso waa isla cuno. laakiin nasiib wanaag Soomaaliya Eritrea ma aha. Soomaaliya Eritrea kala ma aha oo dadka la dulaysan kara ma aha. Soomaaliya waa dad indha adag, waa dad soo taagan dawladnimo sax iyo cadaalad la yihiin mooyee. Soomaaliya Afrika dadka ugu badan ee ummadaha Afrika loo hanweyn yahay ku jiraan ayagii xawsaha Nigeria iyo dad loo hanweyn yahay oo garasho badan oo waxgaranimo badan oo ganacsi badan oo dhaqaale sameyn og oo dad ku dhaxmilan og. dadka Soomaalida Afrikadaas markay tagaan meelaha tagaan oo dhan fiiri ayaga hormuud ah dhaqaale iyo siyaasad dhinac walba ummadaha ay la macaamilaan. markay Kenya galeen, markay Ethiopia caloosha u galaan, markay xagga galaan afarta u dhawaadaan ayaga ogaan ah meel walba tagaan haday socdaan oo Afrikadaas dhex tagaan meeshay tagaan. marka ummad si sahlan nin u qabsan karo muddo isaga hin kara ma aha, mana la haysan karo, waa ka dhidhinayaan. marka Eritrea guud ahaan haddaan kaaga warramo mutacalimiinta darista hadda waxay ku tilmaamaan xabsiga kor ka furan wax noocaas ah ayaa lagu tilmaamaa. wadan waa wadan police state ah oo dadku aysan dhaqdhaqaaqi karin. cilbaarista u dambeysay sanadka horena waxaa lagu tilmaamay 3 wadan ee adduunyada ugu badan ee qaxootiga ka soo baxaan inay kamid yihiin dadkuna kaga cararayo dhibaato kali talisnimada ninka meesha jooga ee dhalisay ku saabsan. waxa loo yaacayaa ay tahay inaan meesha dimuqraadiyad jirin, sharci jirin, sharci iyo shuruucda jira uu yahay kaliya ninkan wuxuu leeyahay oo kale. marka dadku uu soo dirsaday dibaddana waa dad asaga wadan camleynaya. ana hadda shir ka dhacay jaamacadda Lund bari hore waxaa noogu yimid qunsulka asaga u matala Stockholm, nin qunsulo oday oo fadhiyo kuwa asaga la dagaalgalay waagu la dagaalamayay Mengistu iyo ayaa la jooga oo meeshaan u soo diray Stockholm. shirkuna la jooga waa arka waxaan ku yiri wadankan aad matalayso sida u socdo marka dambe ninkan caawa adoo meesha ka dhinto ama laga saaro wadanka waa burburaya. marka soo u burburin soo kuma wanaagsan wadanka inuu dimuqraadiyadeeyo hadduu nin muwaadin oo wadankiisa u naxay u yahay inuu dimuqraadiyadeeyo. wuxuu ahayd fikrad aad u la yaabanaa waayo waxa lagu soo canqariyay sidii Maxamed Siyaad Barre ku dibadda u diro oo canqarin jira loo canqariyaa waxa la geliyaa meelihii ku taalay ii sheeg magaceeda meeshii ceel jaalle oo dadka inta lagu xareeyo lagu hayo bilooyin la barayo waxa loogu yara kacaan oo ah jaceelka iyo jaceelka ma aha waa beentooda wax jaceyl jilayaan waxa lagu canqarinayaa qaabkay u guludeyn lahaayeen, qaabkay ugu nacamleyn lahaayeen kaligii taliyaha meesha jooga la barayaa. marka waxay jilayaan dibadda markay tagaan inay ninkii jecel yihiin ama rabaan maalintuu dhaco ayayna afka furanayaan ay nacladayaan asagii. waxaana taas tusaale naga siiyey Maxamed Siyaad Barre markuu naandiwanka carray wixii dibadda u joogo dhan waxay qaarkood qoreen oo jaraa'idka ku qorqorayeen aqri
iyo qaarkooda buugaag qoray ay ku nacladayaan kuwa badan oo safiir ah buugtoodii jaamacadaha yaalo London xataa sawaas ku arkaysaa waa asagii nacladayaan waxay ka sheegayaan hadda dhageysto waxaan anaga sheegi karin personal life-kiisi iyo private life-kiisi ka sheekeynayaan waxay ku arkeen asaga waxa kale tusaale ku ah labaad markuu hadda la dilay 2011kii Qadaafi Muammar al-Qadaafi kii xamar u jooga wuxuu ku hadlay waa ujeed kii xamar midkii u jooga safaaradda markay uga furan ilaa ninkan ilaa 97 safaaraddu xamar geeyay wato hadlayay uu sii casilay intaan la sii ceyrsan oo nacladay marka waa dad noocaas ah marka dad noocaas oo safaaradii u soo diray hadaa la sheekaysato aad tiraado war saan ma ka daysaan wadankii nimeeyadaan u turayn si kale u hadlayaan laakiin berri waxa arkaysaa ayagoo si kale u hadli doona marka Eritrea la macaamilayo dee naftiisu been u sheegay Farmaajo naftiisu been u sheegaya dhaqanka Soomaalida ayuu hafrayaa mana garanayo hadduu dhaqanka Soomaalida yaqaan Eritrea wax kuma darsadeen wuxuu wax ku darsan lahaa wadamada horumaraya ee Afrika ee horumarka dimuqraadiyadeed sameeyay horumarka nololeed sameeyay horumarka dhaqaale sameeyay ee dadkoodii dhisaya ee ummadda jidadka u xaqaya ummadda dhiig joojinta u sameeyay nabadda dhisay qarannimadooda soo celinay kuwaas oo la macaamil lahaa wadamo waxaa jira Afrika oo Soomaaliya looga dhigi karo example oo jidkay mareen la raaci karaa jira kuwaas uu aadi lahaa laakiin aadisto Eritrea aadayo laftirkeeda ayaa waxay tahay evidence ama caddeyn ku tusaysa inuu by nature yahay dictator ah oo xukun dictatornimo ku dhex koray oo waxa kaliya u fahmay ee taa xukun dictator kaliya inuu la qabsado marka Soomaaliya ayuu qalad ka fahamsan yahay mooye wuxuu naftiisu halis ku gelinayaa meeshan ilaa uprising dhacayo dum hal maalin isku day inuu ku darsado 8 February 2021 shacbigu waa soo banaan baxayaan dadkana waa soo bixinayna anaga laftirkeena waa galeynaa wadanka waxay noqonaysaa in loogu daato madaxtooyo laga cirso dictator xukun ka degi waa inuu noqdo dimuqraadiyadeena diido doorashada diido marka Eritrea de waxay ku caawin kartaa mala inuu been u sheegay laga yaabaa oo midkan Eritrea jooga uu leeyahay anaga meesh kugu haynayno ciidan aan soo gelinayna dadkii waxa weey haday banaan baxaan waxa weey waa la didinayaa waa la habada lagu ridayaa waa kala carsinayna wax noocaas inuu shaqeynaa laga yaabaa laakiin waa in la fahmaa structure-ka Soomaali ku dhisan tahay iyo wixii taariikh soo martay iyo wixii halaag la soo maray inaan dib loogu celin oo si nabad leh xukunka u tartama haduu tartamayo awalan cid dib dambe u dooranaysa jirin 4 sano meeshan la soo wada maraa 4 sano hadda legacy ka tagi karto marro ka tagi lahaa maanta waxa uu harayba waxa weeye October la galayaa koor ilaa September doorashada baarlamaanka waxa u dhiman 9 bilood madama wixii ka dambeeyay doorashada madaxweynaha qabanqaabadeeda dhowrka bilood oo ka haray noqonaysa marka wixii iska gabagabo marka waxaan uu egyahay neef gowracan geeda kama waabto dhaqankeedii ayuu leeyahay waxaa la filayaa maalmaha soo socda inay doorasho ka dhacdo galmudug waxaa halkaasi ka soo baxay cabashooyin badan oo ay qabaan odayaasha qabiilada dowladda ayaa lagu eedeeyay inay isticmaalayso awoodda dowladnimo iyo canshuurta shacabka si ay halkaas uga soo saarto shakhsi ayada taageersan haddaba ma la dhihi karaa dowladda waxay si qaldan u isticmaalaysaa awoodda dowladnimo oo ahayd in shacabka loogu adeego waa arrin aad iyo aad looga xumaado waxa ka dhacay galmudug laakiin waa waxaan nagu cusbeen oo hore waxay uga soo dhaceen Southwest Beedhabo maamulkaas ayaa saas oo kale la soo yeelay waxaa la isku dayay in la yeelo Jubbaland waa shaqeyn weyday wax walba la dul dhigay waxaa la isku dayay in laga sameeyo Puntland waa shaqeyn weyday galmudug feeri waxa hadda laga sameynayo waa wax loo sameynayo in dan shakhsi lagu gaaro dad iyo codeeya ha iga soo baxaan dadaan anigu wata ha iga soo baxaan wax aniga aan raba ha iga soo baxaan oo wax shakhsi iyo dan shakhsi ah opportunistic ya dan umadeed ma aha dan qarannimana ma aha haddii marka ay ka talinayaan danta ummadda Soomaaliyeed wanaaga dalka hadday ka fakarayaan dad muwaadiniin hadday yihiin oo dad dalkooda iyo dadkooda u naxaya ummadda dhamaanaysa iyo dhiigooda u naxaya hadday yihiin waxay ahayd ummadda ku nool galmudug in la isku daayo ayada inay meel isugu yimaadaan ayagoo kaaba qabiiladoodii leh ayagoo culimadoodii leh ayagoo haweenkoodii leh ayagoo dhalinyaradoodii leh in meel la isugu geeyo intay rabaan ay wada hadlaan sanad ha wada hadlaan 2 sano ha wada hadlaan ha shiraan intay doonaan iska socdaan waa ogtahay Soomaalidu waxay jecel yihiin shirarka ay conflict resolution kooda ku xalinayaan inay muddo dheer qaadato ma jecla inay muddo gaaban waxay ku dhameystaan marka in lagu fangareeyo oo lagu caawiyo oo adduunka loo weydiiyo la yiraahdo aan caawiya ha socdo shirkooda wax ayaga marka ay leeyihiin meeshooda ku sameystaan ayay ahayd
in haddii nabad laga talinayo haddii qarannimo peace building state building laga talinayo laakiin lagama talinayo wax qarbaboosh ah oo bobsiis ah oo cid heshiis ku ajirin cid yani ku caloolfayo jirin oo yani laysma quuninayo waxa laysku muquuninayna tahay isticmaalka laysku isticmaalayo dhaqaalo ka imaanayo wadamo ajnabi ah oo la wada ogyahay iyo laaluush dadkii la kala laaluushayo oo cid walba damacaysa inay hanti yeelato dad wada faqri ku koray oo doonaya inay wada hantiyeystaan oo ay guri dhistaan nolol abuurtaan degdeg ah oo aysan shaqaysan ayaa la wada laaluushayaa oo aan damiir ku shaqaynayn dadnimo ku shaqaynayn diin ku shaqaynayn waxa kaliya eeganayaan ay tahay laaluushkaas ayaa boobsiinaya meesha kan igu dar kan iyo magacaaw kaas ka tir kan waa feeri waxa yaab ah qabaa'ilka qaar ayaa waxay shireen marka waxay ka shirayaan yaan siinaa kursigan yaan siinaa ayagiya isbaarbaaray meel qadanaan jirtay mid kale waxay sharaxayaan nin halkaan ninkaa noo qoraa laleeyahay kuwii meesha joogay guddiga sheeganayay ma qorayaan beesha waxay kusoo kala hadlaysay arrimo ay ku dhamaysatay barbalemo ay isku haysatay siyaasad ay ku kala ceel isugu qabtay ka heshiis diyooyin inay ku kala qaateen laga yaabaa oo conflict resolution-kooda waxooda ayaga gooni u xalisteen in lagu caawiyo sooma ahayn in garab lagu siiyo sooma ahayn laguma siinayo inta laga saara ayaa mid kale oo aysan ayaga shaqo ku lahayn loo qorayaa colaadoodii la sii karkarnaya marka inay sii laayaan oo kaas meesha lagu soo qoray dadkiisii la laayay marka ilaa refugee aa jiro assassinations aa jiro balaayo dhan la isku dilaya magaca shabaab la isku laaya waa ogtahay marka dhiig ayaa gacmaha lala galay waa dad marka dhiig meerata ah oo dhibaato kaliya garanay marka wax galmudug ka soo bixi doona waxba kama bedelna warkiyo kooban wixii ka dhacay South West maamul dhaawacan oo skeleton ah qalfoof ayaa meesha ka soo bixi doona ujeedka loo sameeyay maamul ahayn ay tahay in cod lagu helo meel uu dhaafi karo email u gaari kara jirin aan meel kobiya dad masaakiin meelna uga shubi karin social service qaban karin security siin karin amni dad gelin karin iska baaba oo meeshaas ku xiran oo aan magac u yaala on paper ya boorsa la qaato la dago diyaarada la fuula kaliya ka soo socda maahane wax qiimo leh meesha kama imaanayaan maxaa kula tali lahayd marka dadweynaha awqaasha reer galmudug arintaas sidii looga hortago reer galmudug de waxaa u wanaagsan inay dhaqan ahaan dhaqankii adduumay oo hadda waad ogtahay galmudug dhaqan ma jiro oo kaaba qabiiladii la yaqiino oo qabiil walba u lahaa ma jiro mar haddii dadku dhaqan ka duman dee siyaasad kuma dhismi karaan laguma dhisi karo wax walba aasaasay leeyihiin igun laga soo bilaabo waxa Soomaaliland nabadda ku gaartay Puntland ku gaartay waxay ahayd aasaas dhaqan oo odayaashoodii la yaqiinay ay ka taliyeen nabad kadibna wixii ay ka taliyeen ay dad siyaasiyiin u doorteen inay ku hogaamiyaan tii ma jirto maanta kaaba qabiilada meesha jooga waa dad gacan talgu soo sameeyay waxaana soo sameeyay talisadii hore ee wadanka soo maray kanuna kuwa kale sii samaystay kuwa cusub hadda sameeyay maqlaysid waa taqabaa'il hadlayaan ay leeyihiin kaaba qabiilada aan garanayn meel Allah meel ka yimaadeen aan garanayn ayana loo abuuray marka aniga waxaan ku talinayaa in dadku tashado isku yimaado ka arinsada arintiisa awoodda kaliya ma aha awood taliska maanta meesha jooga uu leeyahay kaliya ma aha awood weyn waxa leh oo aan ku shaqaynayn dadkan wax ugu qabanayn kuwa lacagta leh tujaarta ganacsatada aaway meesharaan oo waxaan dhinac u jiheeyaan culamaa u diin ma jiro wixii culamo jiray dee ayaga iibsaday waa kuwaas meelaha ka qaylinaya oo laaluushka ku hadlaya ee hoteelada u degan taliska farmaajo mutacallim Soomaaliyeed dee wixii dibadda iska galay wixii yaroo wadan ku soo haramooyay inta kale dibadda u carreen wixii wadan ku soo carrana dee waa wax uu naftooda u shaqaysanayo ka aamusan wixii ama naftooda u baqaya in la dilo oo waa dadka qaar la laayay aad ogtahay in la leeyay marka yaan la talinaynaa waa su'aasha meesha taagan annaga yaan bagarnayn cidaan la talin waa dad ma jiraanba meesha marka yaa isku imaanayo waa meeshii marka waa inaan dhahnaa hal la dadaalo cid kastoo dadaali karto si u dadaali kartaa u dadaasho nin walba meeshii aad ku toorantahay ka dadaal oo waa tuu yiri Soomaha rasuulku calayhi salaatu wasalaam hadaad aragtaan xumaan iyo fidno iyo dambi la galayo hortaada ka dhacay gacantaada dee ku suuli hadaad ku suulin karin waa tuu yiri afka ka suuli hadaad afka ka suulin karin qalbiga ka dhac waa tuu yiri marka dee waa nin walba maanta waa awoodaa inuu gacanta ka suuliyo waxaan dhacay ama afkiisa ka suuliyo ugu dambeyn waayay u dambeeyay Soomaaliya qaraxyaa ka dhacay qarax aad ugu baabaayo dad arday ay ku dhinteen qarax asoo ay ka dhacay jiro madaxtooyada horteeda waxaa dhacday in la xiro madaxtooyada in la maro xataa xildhibaanada loo diiday
farmaajo dhowr shir muqdisho ka dhacay ayuu ka booqday oo ka baaqday xaalada ammaan darteed markii ugu horeysay ayaa waxaa dhacay baraanbax lagu qabtay hool hoostiisa meeshii banaanka la aadi jiray waxaas markii isku soo duub xaq u muuqda adiga xaalada farmaajo ma kasii dartay waa soo wanaagsanaaday meeshii ugu xumeeday mare xaaladda farmaajo waayo wuxuu awoodi lahayaa inuu hadda ka soo baxo madaxtooyada shirarka u dambeeyay waa la socotaa inuu ku qabanayay hoolkii madaxtooyada ku yaalay hoolkii guriga dambe gadaalay kan dambe ku aadan Warigley midka ku aadan hoolkii yaraa dalcadda saarnaa waa tuu ku shirinayay wasaaradii wax walba oo ay ahayd inuu wasaaradii ugu tago waa in meesha loogu keenaa amnigiisu u baqayaa marka waxaanan maqlayaa inay jiraan warar dad asaga baqdin gelinaya oo ogaaday inuu yahay nin cabsada nin aad u cabsada uu yahay because nin ma ahayn moogtahay soo maray noloshiisii horena ma ahayn nin moogtahay waddankan wuxuu ka tegay soo yaraad loo diray Maraykan Maxamed Siyaad Barre u dirsaday marka wixii dhibaato dhacaysay iyo waa maqnaa dhowr iyo 20 sano 85 waa too baxay 25 sano soo maqan oo soo noqday marka xaaladda waddanka ma ka warqabo asaga ma ogo dhibaatada jirta ma oga kuwa u tagana beenay u sheegaan oo xilli adaan lagu jecel yahay waddankana wax weyn kama jiraan marka waxaan oo dhanba asaga waxay ku tahay illusion wax caloosaada korkiisa ka dhacay oo haystaa ruwaayadu oo haystaaba maba u haysto wax sax ah dad inay dhimanayaan dhiig daadanayo macno uma sameynaysa asaga يعني مو مدد دميس وحين ugu dhami lahayd 5 sano dalkan ka maqnaa ya markuu dadka gobolada lagu soo leenayay xamar jooga xagga loo ka baxay haddana waa u soo noqday marka dareen dadka uma bale waxaan dhacay ma dhibayso qof dhintay ma dhibayso asaga anestiisa kaliya aysan ahayn waana dhaqanka ka dareemayso isku waardeynay iyo bahashan u gashanayo xabadaha aan karin markuu meelaha tagay waa aragtay markuu soo baxo xabadan uu gelinay markuu tagay Coon Stadium iyo arkiis la soo sawiray marka dibka jira waxay tahay marka madaxtooyadu hadda ka bixilaya meel uu tagay iska dhaaf hadduu hadda furi lahaa uu tagayo Stadium Muqdisho waa inuu ciidanka AMISOM aad loo wata oo meesha geystaa magaalada waa inay dhowr bari u seexiraan magaalada loo xiro meel uu maray marka nin saas amnigiisiiba intaasoo lacag ay galayso intaasoo dhibaato laga mudanayo intaasoo qasaaraha ganacsatada uu qasaarinayo wadooyinka loo xirayo soo uma sahlana inuu intaan waqti ka dhamaan iskaga tago waddankan oo iscasilaha uu qaboon hadduu waddan yahay waa inuu yiraahdo war waa bas ana waddankan waan ku fashalmay waxna waa qaban waay iska daa inaan waddan wax ka qabtee xamarna wax ka qabtee iska dhaafe madaxtooyada intuu dhawaan nabad ka abuur lahay nololna ka abuur lahay wuxuu tigiyaa weli sidii u dhooban meeshii maxay baar raaxo agteeda madaxtooyada dhagaxa ka turtaa ku dhacay wuxuu tigiyaa waxay la yihiin roobka baco iskaga dhigaan hataa ma haystaan weligiis uma istagin nolol iyo nabad iyo nolol aan lagu leeyahay nolol looma abuurin qaxootigaas madaxtooyada hoosteeda degan nabadna ma jirto nololna ma jirto asagiyaan nabad haysan ayagana nolol ma haystaan qaxootigi marka farmaajo 4 sano intaasay ku soo dhamaatay fashil iyo foolxumo ay ku dhamaatay ilaahana ugu talagalay inuu saas u sharaf dilmo waxa ku keenana waxay tahay niyad xumadiis waa nin aad u niyad xun qalbi xun oo uqdad badan qabyaaladuna aad ugu badanta laakiin umada waji kala tusa wajigii saxda ma tusayo marka uurka ilaahina daalacda mugta ilaahay wuxuu daalacdaa qalbigaaga waxa ku jiro ya soo mardiin rasuulku kaleey salaatu salaam inama al-a'maalu binniyat amal walba niyada waa halkaas ilaahay fiirna uurkiisa maadaama uur xun yahay ilaahay wuxuu qadaray inuu fashalmo marka adaan ku weydiinaa marka farmaajo iigeeyay marka waxay ku soo dhamaatay farmaajo iga fogay ku soo dhamaatay ay magaciisa ay maqasheen kuwa asaga la jira kala yaacayo kala cararay maanta marka falxuma ka weyn ma jirto iyo marka waxa u roon wadanka sharaxadan kuma dhimanay ana taladeedu waxay tahay hadaan la talanayo tartiibtaada inta waqtigu gaarin ku wareeji gudoomiyaha baarlamaanka asaga wadanka doorasho gaarsiinay oo dadkii tartami lahaana ay warqadahooda u dhiibanayaan guddiga doorashada sameynaya saasa hawsha lagu galayaa wajigiisa ummadda ka qariyaan dhihi lahaanay hadday adiga kula tahay ha iyo hagoogani oo tadaadii qarin inay hadimay noqon